السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka gorfaynta ciyaaraha ee Som Sports. Haddaad nagu cusub tahay subscribe channel-keena ama rukumo si aad u hesho xogaha ciyaaraha halkan aynu ku baahino. Qodobada barnaamijka aanu idinku hayno waxaa ka mid ah Bayern Munich iyo PSG oo isku diyaarinaya dagaalkooda finalka Champions League ee Axadda. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. waxaan sidoo kale warbixin idinkaga haynaa Andrea Pirlo tababraha Juventus oo doonaya inuu kooxdiisa ku soo biiriyo halyeygii hore AC Milan iyo xulka Talyaaniga Alessandro Nesta. waxaan sidoo kale warbixin idinkaga haynaa Barcelona oo ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo soo xirigelinta daafaca kooxda Manchester City ama hada kaga maqan ee Angelino. qodobadaasi kuwa kale oo ay ka mid yihiin tartanka Europa League oo ay ku guuleysatay kooxda Sevilla ayaanu idin haynaa. qodobadaasi kuwa kale u diyaar garooba. markale kuna wacan daawadayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka gorfaynta ciyaaraha ee Som Sports oo xilligan oo kale aad daawataan aynu ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ay hogaamiyaan xidigaha Neymar iyo Kylian Mbappe ayaa hal kulan u jira in ay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay ee Champions League taasoo ka dhigi karta mid ka mid ah kooxaha awoodda badan ee ku guuleystay koobka kooxaha Yurub ee Champions League balse cabsi laga qabo kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich oo hogaamiyo xidiga Roberto Lewandowski ayaa ka hortaagan jidkooda guusha ee kulanka Axadda. 9 sano kadib markii ay la wareegeen kooxda PSG tujaarta dalka Qatar ayay kooxda ka dhigeen mid awood badan taasi oo u sahashay inay sanadkan gaaraan kama dambaysta tartanka kooxaha Yurub ee Champions League. PSG waxay noqon kartaa kooxdii labaad ee dalka Faransiiska ka dhisan taasoo ku guuleysatay koobka Champions League kadib markii ay 27 sano ka hor koobkeedii ugu horeeyay ee Champions League ku guuleysatay kooxda Marseille. kama dambaysta tartanka kooxaha Yurub ee Champions League ayaa sanadkan u muuqda dagaal u dhaxeeya tujaarta ama maalqabeennada dalalka Carbeed iyo mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda iyo taariikhda weyn tartanka kooxaha Yurub ee Champions League waa kooxda Bayern oo koobkan raadinaysa markeedii lixaad gaartayna koob iyo 10 final intii tartankan la ciyaarayay. kooxda Jarmalka ka dhisan waxa ay ku guuleysatay Champions League 5 jeer markeedii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa 2013 markaasoo 2-1 ay kaga badisay kooxda Borussia Dortmund oo Wembley ay kula ciyaartay xilligaasi. xidigaha kale ah Manuel Neuer, Jeremy Boateng, David Alaba iyo Thomas Müller ayaa ka mid ahaa safkii waagaas ee Bayern koobka u qaaday haatan diyaarka waa kulanka PSG. dhinaca kale sanadku markuu ahaa 1974 oo kooxda Jarmalka ka dhisan ee Bayern ay ku guuleysatay koobkeedii saddexaad oo xiriir ah oo tartamada qaaradda Yurub ah ayay da'yartii PSG ee xilligaasi iyaguna u soo dalaceen horyaalka heerka koobaad ee dalka Faransiiska taasoo muujinaysa sida ay u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo awood ahaanba labada kooxood ee finalka wada ciyaaraya. guushii 3-1 ka ahayd ee semifinalkii ka gaartay kooxda Lyon kooxda Bayern ee ka dhisan Jarmalku ayaa ka dhignayd guushoodii 20aad oo xiriir ah iyadoo aan dhinacooda dhulka la dhigin 29 kulan oo ay ugu dambeysay in laga bidiyo bishii December ee sanadkii hore taasi oo walwal kala ku abuuraysa kooxda PSG. ciyaarta finalka ah ee Axadda 23 bishan la wada ciyaari doono ayaana go'aamin doonta cidda adkaan doonta lacagta iyo taariikhda kubadda cagta. haddaynu halka kaga soo laabanno finalka Champions League-na wararka suuqa kala iibsiga haddaynu u laabanno halyeyga Andrea Pirlo ee dhawaan loo magacaabay hogaanka kooxda Juventus ayaa doonaya inuu hogaanka kooxdaasi kula midoobo saaxiibkiisa xulka Talyaaniga Alessandro Nesta. Andrea Pirlo wuxuu doonayaa in saaxiibkiisa Alessandro Nesta uu ku soo biiriyo kooxda Juventus sida laga soo xigtay wargeyska Corriere dello Sport. tababraha dhawaan la magacaabay Andrea Pirlo ayaa doonaya in Alessandro Nesta halyeygii xulka Talyaaniga iyo kooxda AC Milan inuu ka mid noqdo shaqaalihiisa tababarka ee kooxda Juventus. Barcelona waxa ay raadinaysaa dambe daafaca bidix ee kooxda kubadda cagta Manchester City kaasoo kaga maqan ama waa ninka lagu magacaabo Angelino 7 bilood u dambeeyay waxa uu maaha ku joogay kooxda Jarmalka ka dhisan ee RB Leipzig iyadoo oo kooxda ka ciyaarta Bundesliga ay isha ku hayso inay xidigan si rasmi ah heshiis uga saxiixato. Barcelona ayaa ku jirta qorshe kooxda dib u dhis loogu sameeyo kadib markii ay guuldarro weyn kala kulantay tartanka kooxaha Yurub kooxda Bayern Munich kadibna shaqada laga cayriyay tababarihii kooxda Kuke Santen iyadoo oo dhawaan loo magacaabay halyeygii hore ee kooxda Ronald Koeman. Barcelona waxa ay doonaysaa
inay ciyaaryahankan kala wareegto kooxda Manchester City iyada oo lagu qiimeeyo ku dhawaad 30 milyan oo euro. wararka suuqa kala iibsiga halka hadii aynu kaga soo laabanana qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu ku sii dhawaaneynaa iyo kooxda Sevilla ayaa markay toddobaad ku guuleysatay tartanka Europa League iyada oo finalkii kaga adkaatay 3 gool iyo 2 gool kooxda kubadda cagta Inter Milan. taasi waxa ay ka dhigan tahay in 8 koob ee ugu dambeysay oo Europa League ay ku guuleysteen kooxaha ka kala socda dalalka Ingiriiska iyo Spain. kooxda kubadda cagta Sevilla waxa ay qaaday koobkii 10aad oo ay geysay dalka Spain marka loo fiiriyo koobka Europa League ay qaadeen kooxaha ka dhisan dalka Spain iyada oo kaliya ayaa qaaday 6 koob waxa ay tagtay 6 final 6diina waa ay ku guuleysatay. xidiga lagu magacaabo Jesus Navas ee u ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa markiisii saddexaad koobka kooxdiisa la qaaday waxaana kulankan uu qaaday isaga oo kabtana. ninka lagu magacaabo Diego Carlos ee daafaca dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta Sevilla ayaa taariikh cusub sameeyay isaga oo rigooro kooxdiisa ku galay amaba in gool laga dhaliyo oo rigooro ah sabab u noqday heerkii semifinalka quarter finalka iyo finalka dhammaan goolashaasina Sevilla waa looga hormaray hase yeeshee kooxdiisu ay ka soo kabatay ugu dambeynna waxa uu sabab u noqday inuu dhaliyo goolkii guusha ay koobka kaga qaadeen kooxda Inter Milan inkastoo kubaddaasi ay ku sii dhacday weeraryahanka kooxda Inter Milan Romelu Lukaku. intaasi waxaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa gorfaynta ciyaaraha tan barnaamijkan ka xigeentan kulmi doonaan waxaan kaga tageynaa nabaday.